السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سومالي قيمها iyo qadarinta mudan ee ku xiran barteena galka media isku soo noqod wanaagsan oo xiiso badan dhammaantiinba waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan aad faraxsan tihiin meel walba aad joogtaan kuwa xanuunsan ee caafimaad la'aanta ay hayso Allah caafiyo ayaan leenahay kuwa farxadda haystana Allah u ziyaadiyo kuwa ay ka maqan tahayna Allah u keeno farxadda ayaan leenahay soo dhawaada Soomaaliyay waxaan jeclahay inaan halkan idin kula wadaago xog culus oo 24 saac ee ugu dambeynay aynu u dhardhiganay hadii aynu nahay galka media maxay tahay xogtaasi waa madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dhawaan xilka wareejin doono Roble waxa ay yeelan doonaan shir xasaasi ahi oo ay markaa isugu arki doonaan sirta kulankaasi muxuu yahay Fahad Yaasiin oo isagana kulankaasi qadka telefoonka uga qayb gali doona ayaan daawadayaal halkan idinkugu soo bandhigi doonaa iyo saraakiil culus oo loo yeeray magacyadooda ayaynu markaasi kulankaasi ka qayb gali doono maxaa looga hadlayaa xogta xilligan halkee ayay daaran tahay wararkii ugu dambeeyay ayaan daawade halkan markaasi kaaga dabageyn doonaa balse marka ugu horeysa waxa aan markaasi ka codsanayaa in aad boggan ku soo biirto oo aad follow garayso followgeena waxa uu marayaa 132,000 ayaan jeclahay in uu marayo waxaan rajaynayaa 200 madaxa noo geliya Soomaaliyay 200 madaxa noo geliya ama nageeya 200 oo followers ka ahi waxaan rabnaa in aan wax ka bedel ka sameeyno shaqada dhinaceeda 200 aan kaga shaqeysano muuqaaladan iyo muuqaalada kale ee aan jecelnahay ee aan halkan idinkula wadaagi doono markan kulankan waxa la leeyahay waa iscafin kulankan waxa la leeyahay Roble ayaa dalbaday kulankan waxa la leeyahay siyaasadda ayuu waji kale u yeelayaa oo marka kursiga xitaa looga dhaganaa Fahad Yaasiin suuragal waaye ayaa la leeyahay in wax badan ay iska bedelaan Roble waxa uu rabaa in siyaasadda Soomaaliya uu way ku sii jiro balse kuma sii jiri karo iyada oo ay u cuqdadaysan yihiin labadiinan ee siyaasadda soo geliya waa Fahad iyo Farmaajo xaalku Roble maalmihii dambe waxa uu noqday agoon siyaasadeed rajo siyaasadeed oo markaa isagu soo wajahday waa agoon siyaasi noqday siyaasi agoon noqday iyo siyaasi rajo noqday labadaba ayaa isugu darsamay ninkan Roble ay leeyihiin ee dhawaan xilka wareejin doono Fahad waxa uu la wadaagay hagardaamooyinkii uu markaa u dhigay siriqda dabinta iyo waliba dawladii uu u maleegay balse waxa uu yiri waan ku cafinayo siyaasadda dib dambe ha ugu sameyn qof adiga ku aaminay dawladnimada ku soo geliyay in aad dhaqankaasi dib dambe kaga dhaqantid ha isku dayin kulankaas waxa lagu ballamay in kulamo kale la yeesho maanta Farmaajo maadan aqoon marka uu ra'iisul wasaaraha ka dhigayay aniga ayaa ku baray aniga ayaa dalka ku keenay aniga oo markaas xigta ka dhiganaya waxaad noqotay waraabihii ilmihiisa cunay ayaad noqotay halka la rabay in aad ku shaqeyso siyaasadeena waxa aad ku shaqeyso siyaasad ka baxsan ma aqaan cidda ka waashay balse wax walba oo hagardaamo oo aad noo geysatay maanta inagu waanu ku cafinay laakiin shuruud ayay yiraahdeen shacabka Soomaaliyeed weydiiso cafis ayay dhinacyada markaas yiraahdeen xaalka Roble waxa uu noqday in uu madaxa hoos aadiyo yiraahdo maxaan qaban karaa maanta halkee tala aan ka bilaabaa runtii aad iyo aad ay muuqaalkan share garay maxaa yeelay warka iyo xogta adiga ayaan ku raadinayaa ma aqaan xogtan warbaahin hadii ay noqoto ama goobo kale in aad ka heshaa laga yaabaa toddobaadyada kale ee soo socda laakiin aniga waqti iyo juhdi ayaan geliyay waa la isku dhaamaa xogaha iyo kala xeedadaysiga in markaa qofba sida ay xogta u soo gaarto xogaan xaqiijinina shacabkayga reer galka media lama wadaago saaxiibiya wuxuu leeyahay ninkan na soo gaarsiiyay qoraalkan markaa iyadu waxa ay markaa noqon kartaa
in dhinacyo badan xaaladda rooble xilligan dhinac walba ay xaaladdu markaa la isaga tusay siyaasi walba uu iskaga arkay balse muuqaalkan sheergaray kulamadan xilliga ay dhaci doonaan kulamada kale weli lama shaacin balse oo markaa hordhac ahaan ayaa kulamada markaasi loo qaatay laakiin waxaa dhiman kulan kale oo la isku arkayo saaxiibayaal kulan kale oo la isku arkayo oo iscafin guud ah laakiin hadda waa la ballamay oo kaliya is aragii ayaa laga ballamay kulanka kale wuu dhinaan doonaa laakiin waxyaabaha hordhaca iyo ereyada la isku dhaafsaday kulanka dibad joogga inta ay ka ahaayeen oo fahad dibad joogga oo dhinaca qadka telefoonka marka ugu qayb galayay waxyaabaha la isku dhaafsaday iyo kulan weynaha xilliga loo ballamay ayaan xilligan halkan kula wadaagaya muuqaalka sii sheergaray waxaa sidoo kale naga xasuusinaa saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan kulanka kale xilliga uu dhici doono inkastoo aan la cayimin waa kula soo wadaagi doonaa halkan ayaad xogtiisa kala socon doontaan muuqaalka sheergareeya tan iyo kulan dambe nabadgelyo saaxiibayaal